macmil noqo mulkiile waa halkudhigga sanadka ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel ay daahfurtay maanta uguna tala gashay macaamiisheeda waxaanay abaalmarintani ku maalgelinaysaa Somtel adduun lacageed oo gaadhaya $120,000 Mareykanka waxa intaasi dheer haddii aad tahay macmil Somtel oo nasiib u yeesha abaalmarinahan inaad noqon karto mulkiile Somtel darteed iyadoo shirkaddu ku sameynaysa maalgelin rasmi ah sidoo kale waxa macaamiisha shirkadda Somtel loo diyaariyay 14,000 oo hadiyadood oo qayb ka ah abaalmarinta sanadka ee qaaliga ah sida uu sheegay madaxa suuqinta shirkadda ugu ballaaran geeyiga ee Somtel Abubakar Cabdi waxaanu macaamiisha ugu bishaareeyay abaalmarinta sanadkan ay u kala dheerayn doonaan iyo waxyaabaha ay noqon karto ee dib loogu soo celinayo lacagtoodii ay ka isticmaaleen adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee Somtel shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel 4 sano ugu dambeeyay waxa looga bartay in macaamiisheeda ay ku celiso sanad walba inay wax ku celiso sanad walba kala hore waxa jirtay olole loogu magac daray 10,000 oo hadiyadood oo shirkaddu ay bixinaysay halkaas oo hal macmiil oo kamid ah uu ku guuleystay guri ololaha abaalmarineed sanadka dhinaciisa madaxa waaxda ganacsiga shirkadda Somtel Maxamed Faacul ayaa sheegay inay heli doonaan macaamiisha shirkadda Somtel abaalmarin qaali oo ay ka midaysan yihiin shirkadaha Dahabshiil Group oo dhan sanadkanna macaamiishooda uu noqon doono sanad xusuus gaar ah u yeelan doona shirkaddu mar walba adeegyadan ay mar walba ay furto ama ay samayso ama abaalmarinaha ay runtii ku soo celiso sanad walba wuxuu la jaan qaadaa hadba xaaladda lagu jiro waad ogtiino runtii sanadkan iyo sanadkii hore dhamaadkiisiiba xaaladda waddanku dhaqaale ahaan runtii waa uu liitay dad fara badan ayaa abaarihii saameeyeen oo magaalada soo galay dad badan oo magaalada joogay oo runtii ganacsiyadoodii ay waxyeelo ku timid sida suuqii waheen oo kale abaaraha oo kale runtii gobolada bariga oo kale aad bay u saameeyeen xoolaha lagu dhaqo iyo meel kastoo runtii gobolada dhaqaalahoodu ku tiirsan yihiin xoolaha taasoo ay tahay shirkaddu runtii waxay iba furtay sanadkan inay ku soo celiso macaamiisheeda hadiyad runtii aan u aragnay inay qaali tahay muhiim tahay oo walibana aan Dahabshiil Group ahaan aanu ku midaysanahay oo aanu doonayno in qof kasta oo Dahabshiil Group ka mid ah haddii uu Somtel joogo sim cardkii uu isticmaalayo haddii uu DBI uu cardkii uu ka furanayo ama haddii uu DMT uu isticmaalayo Dahabshiil remittance uu dibadda joogo oo lacag uu soo dirayo ama ehelkiisa halkan jooga ay lacag ku helaan simkaarka Somtel gudoomiyaha shirkadda Somtel Maxamed Nuux ayaa dhankiisa xusuusiyay dadka isticmaala adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee Somtel xilliga ay u bilaabeen in ay dib ugu soo celiyaan abaalmarinadan iyo ujeedada ay kala haayeen runtii sida xafladan looga hadlay shirkadda Somtel ee kamid ah Dahabshiil Group ma aha markii ugu horeysay ay abaalmarintan bixiso waxa ay bilowday 2016kii hadafkuna muu ahayn in dakhliga shirkadda la kordhiyo ama macaamiisha shirkadda ku xidhan in la kordhiyo hadafku wuxuu ahaa in bulshada shirkadda ku xidhan in wax lagu celiyo horumarka ay shirkaddu ay ka gaadhay waddanka waxaanu ka bilownay abaalmarintii koowaad ee ahayd 1 milyan ku guuleyso 1 milyan oo Soomaaliland shilin ah ku guuleyso maalin kasta muddo 30 casho ah markii aanu aragnay sidii bulshadu u soo dhaweysay ay uga heshay abaalmarinta oo inooga mahad celisay waxaanu ka dhignay program amba sanadle waxaanu ku xijinay hadiyadii ugu weyneed oo 10 gaari oo 0 kilometer oo Hyundai ah waxaanu ku xijinay guryo dahab xoolo loo siinayo macaamiisha Somtel haddaba sanadkan sida ay shaqaalihii Somtel uga horeeyay ay ka hadleen waxaanu isweydiinay maanta maxaa ku haboon bulshada maxaynu ku celin karnaa oo saameyn leh waxaanu daraasad gareynay
marxaladda adag ee dalku soo maray iyo duniduba si guud welibana ay ka kow tahay abaaraha dalka saameeyey ee dad badan ka soo barakiciyey goobahoodii ay ku noolaayeen oo ay magaalooyinka soo galeen si ay ugala soo baxaan qudatururigii taas oo qudheeda oo saamaysay dadkii magaalada ahaa ee miyiga ku noolaa wax ka soo baxa inay saamayso dhaqaalihii waxa kale oo intaa ku sii biiray sixir bararka dunida ka dhacay cudurkii iyo dagaalada ka socda awgeed sidoo kale la sheegay suuqa waaheen oo ahaa lafdhabarta dalka oo runtii dad badan qoysas badan aad u saameeyay si toos ah iyo si aan toos ahayn oo dadka ku xidhan dadkii ku sii xidhnaa ahaa waxaan nidhi maxaa dadka daba aynu samayn karnaa sanadkan waxaan nidhi aynu samayno ganacsato cusub iyo kuwii hore u jirayba inaynu ku xoojinno lacag waxaan u diyaarinay $120,000 ah oo ay ku guuleysan karaan qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaasha xafladda lagu daahfuriyay abaalmarinta sanadka ee shirkadda Somtel ayaa ku bogaadiyay kaalinta ay kaga jirto adeegyada bulshada iyo sida ay u daryeelaan macaamiishooda isla markaana u soo celiyaan abaalmarino ay ugu talagaleen inay noqdaan kuwo dib ay ugu soo celiyaan lacagii ay ku isticmaaleen adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee Somtel munaasabad aad u farxad badan oo ka mid ah horumarka Somaliland gaadhay oo ka mid ah hawlaha shirkadda Dahabshiil ee waxtarka u ah dib u dhiska dalkeena iyo bulshadeena runtii waanan ku amaanayaa Dahabshiil ama Somtel inay runtii bulshadeeda wax ku soo celiso in badan waxaan oran karnaa waa shirkadaha ugu horeeya ama waa shirkadda ugu horeysa ee in badan ku soo celisa bulshadeena la wadaagta wixii ay ka faa'iiday inay dib ugu soo celiso oo ay bulshadii dib uga faa'iido runtii mar ma aha oo laba ma aha oo saddex ma aha inta ay barnaamijkan noo daafurtay oo aynu dad badani ka faa'iideen oo bulshadeena ka mid ah oo runtii maanta ama ganacsiga ku abuura in shirkadda Somtel maanta hawsha meesha ka qabanayso iyo arinta runtii aad loogu farxo qofku waxa weeyaan bani aadamka markaad wax iska siiso oo hadiyad u maagta ama wax un adiga ugu deeqdo laga yaabaa in intaas ka badan uu haysto laakiin marka qofka gaajaysan yahay duruuf hayso oo deyn ku warsado waxa weeyaan waxay ka fadli badan tahay lahaa sadaqada caadi loo baxsado shirkadda Somtel waxay ka mid tahay shirkaddii u horeysay ee igala qayb qaadatay qalin jabinta hooyooyinka ku ganacsada suuqyada magaalada Burco oo dhac runtii farxad weyn bay ahayd anigu qof hawshaasi waxa dareemi karaa qof ay hawshaasi ku soo hakatay oo kaliya aad baan ugu mahad celinayaa shirkadda Somtel mar walba waxay u shaqaysaa bulshada deeqaha ama grant abaalmarinaha loo baahan yahay runtii waxaan ku hambaleynayaa maamulka shirkadda Somtel oo ka mid ah Dahabshiil Group barnaamijkan ay soo daahfurayaan maanta oo ah abaalmarintii sanadlaha ahayd oo sanadkan ay u bedeleen qaab ka duwan qaabkii hore maarayaha shirkadda oo aan iska referin mar dad ka wada hadlanay baa sidee ku timid fikradani wuxuu sheegay markaa iyadoo ay daba socoto dhibaatadii ka dhacday suuqa waaheen in halkii dadka la siin jiray gawaari ama waxyaabo kale oo qalab ah oo aan nolosha qofka anfacaynin oo laga yaabo inuu iska isticmaalo laakiin aan dhaqaalihiisa sii korinayn inay fikraddu noqotay in doorkan laga dhigo maalgelin oo qofku uu meherad samaysan karo shirkadda Somtel mudane Maxamed Nuux doorkan waxa shirkadda Somtel ay bixinaysaa grant amaba ay bixinaysaa abaalmarin ka duwan abaalmarinihii hore oo ah abaalmarin impacted ah oo qofka deeqda la siinayaa ay noqonayso deeq ganacsi uu ku samayn karo ama shaqo abuur uu ku samayn karo oo runtii ah deeqaha ama grant abaalmarinaha
loo baahan yahay shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay guud ahaan Somaliland iyo sidoo kale geeyiga Soomaalida ay ka jirto ku qabataa abaalmarino noocan oo kala ah kuwaasi oo dadka qaarkii ay ku guuleystaan inay helaanba guryo hantiya oo ay degaan. Cabdiraxmaan Carab Daawud, wararka Horyaal, Hargeysa.